Ninku wuxuu indhaha kala qaaday isagoo dhexda harawda diyaaradda aan duuliye lahayn oo gaduudan oo dulaha haabaysa aragti ku saabsan meelaha ay qoyskiisu ku sugan yihiin iyo rasaasta isweydaarsanayaan. Isagoo hortiisa ugu dambeyntii ninkii wuxuu u dabalanayaa dhinaca xeebta oo la socota diyaaradda daroonka ugu yeeray kasra soo hubaya caafimaadkiisa maskaxeed. Si lama filaan ah oohinta Oja oo ka timid harada iyo nin kale oo ay raacday naag ayaa u muuqata midna ma xasuusan wixii ku dhacay. Fiina waxay garwaaqsatay burburka xeebta sida haraadiga markabka dagaal ee lagu magacaabo Kik iyo kasra ayaa dib u xasuusatay. Duulaan kadib nimankii waxay ogaadeen haraagii baabuurka oo khasabta inuu qarniyo jiray. Ayaa sida muuqata waxaa meesha wadooyinka ku yeelay dadku waxay xasuustaan duulaankiis lagu soo qaaday. Waxaana soo baxday in dhammaantooda ay ku dhinteen sanado kala duwan sidoo kale Abram wuxuu qartay inuu jir 67 sano inkastoo uu yahay 25. Sida ay sheegtay diyaaradda cas waxaa dib loo soo nooleeyay waayadoodii hore xusuustoodu waa kala duwan tahay. Waayo waxay ku dhinteen waqtiyo kala duwan oo ku xeeran dhul laakiin 400 sano kadib dabargoyntii bini'aadamnimo ay burburiyeen shisheeyaha ayaa dib soo nooleeyay makhluuqa ku nool biyo oo loo yaqaan speckles. Hadafka ugu dambeyntii waa soo nooleynta bini'aadamnimo iyo macluumaadka intiisa kale. Waxaa laga heli karaa deegaanka ay ku nool yihiin kuwa kale ee soo noqday ay ku nool yihiin diyaaradda aan duuliye lahayn ee kasra ku amray inay soo ururiyaan dalaalayaasha soo ururinta alaabtoodii yaraa ee dadku waxay dejiyeen diyaaradda kadib markii ay isku dayeen inay fahmaan sababta kiis ku soo nooleeyaan isla markiiba waxay heleen meelo burburay. Abram wuxuu soo yaacay isagoo ku faraxsan jirkiisa yaraa ee xooga badnaa mid ka mid ah dhismooyinka uu ku arkay meesha aan la garanayn oo uu taabtay ayaa ninkii dib loo soo tuuray oo uu qartay inuu arkay wax kasta si lama filaan ah. Diyaaraddii cas oo la soo riday rasaastii labaad ayaa ku dhaawacantay Abram. Saddexda ciyaaryahan ayaa orday buur gadaasheeda halkaas oo kasra weerar gaadmo lagu soo qaaday ninkii eryanay oo lagu magacaabo Jack.